السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu ka sheekayn doonaa sheeko aad u la yaab leh oo cajiiba. beri baa waxaa jiri jiray nin boqor ah. ninka boqorka ahi waxa uu lahaa nin wasiir ah oo aad u xikmad badan, mar walna aaminsan qadarka Ilaahay oo wax walba uu arkaba waxa uu odhan jiray khayr insha Allah. inta badanna boqorka iyo wasiirku way israaci jireen si ay u soo wada ugaadhsadaan ugaadha. maalin maalmaha ka mid ah iyagoo ugaadhsigii ku maqan oo wax ugaadhsanaya ayuu boqorkii ku dhacay god aad u dheer, waxaana uu ka dhaawacmay suulka. ninkii wasiirka ahaa oo boqorka la socday ayaa markii uu arkay yidhaahday khayr insha Allah. in yar kadib boqorkii waa laga soo saaray godkii waxaana loo geeyey dhakhtar. ninkii dhakhtarka markii uu boqorkii eegay waxa uu yidhaahday dhaawacan maaha mid dhayal ah, markaa waa in suulka laga jaraa. boqorkii oo aan jeclaysan wixii uu dhakhtarku ku yidhaahday ayaa weydiiyey ninkii wasiirkiisa ahaa oo ku yidhaahday bal ka waran. wasiirkiina waxa uu ugu jawaabay khayr insha Allah. isla markaana boqorkii oo aan ka filayn jawaabtaas ayaa intuu xanaaqay amray nimankii gaadhkiisa ahaa inay xidhaan wasiirka. sidaasaana lagu xidhay wasiirkii oo uu jeelka ku galay. muddo kadib boqorkii oo kormeeraya dhulkii uu ka talin jiray ayaa waxaa ka soo horbaxday kayn. waxa aanu uu jeclaystay in uu kayntan isaga yara nasto, isaga oo faray ciidankiisiina ay ka hadhaan si uu keligii leedh u soo qaato. waxoogaa markii uu socday kayntii dhexdeeda ayaa waxaa ka soo horbaxay dad aad moodo dugaag, maryana ka xidhan waxaan cawradooda asturayn, isla markaana seefo iyo hubba sita. boqorkii oo naxsan intay qabteen ayay la tegeen xaggay deganaayeen, waxaana ay u dhiibeen mudanahoogii. haddaba maxay dadkani u soo qabteen ninkan ee ay ugu keeneen mudanahooga? jawaabtu waxa weeyaan, marka koowaad maalintan waa maalin ciid ah oo ay leeyihiin wax allaaliya waxa ay soo ugaadhsadaan maalintaas waxa uu doonaa ha ahaadee waxa ay u gowracaan asnaamta ay caabudaan. laakiin waxa ku xidhan shardigaasoo ah inaanu iin amba ceeb lahaanin waxaas ay soo ugaadhsadeen. markii ninkii boqorka ahaa mudanahoogii ay u keeneen ayaa mudanahoogii waxa uu amray in ninkan wax iina ay ka baadhaan si haddii uu bad qabo ay u gowracaan. nasiib wanaag ninkii boqorka ahaa waxa ay arkeen suulkiisa oo go'an, waana iska sii daayeen maadaama oo uu iin leeyahay. haddaba boqorkii markii uu ku soo noqday dhulkii uu ka talin jiray isaga oo geeri ka soo badbaaday ayaa waxa uu codsaday in loogu yeedho ninkii wasiirka ahaa ee uu berigii xidhay. wasiirkii markii uu yimaaday ayaa inta uga sheekeeyey qisadii ku dhacday uu weydiiyey su'aalo, waxaana uu ku yidhaahday waarniyo waa tii berigii markii suulka layga jaray aad tidhaahday khayr insha Allah. haddaba anigu gartaya waa tahay anfacday, adiga maxay kuu tartay? ninkii wasiirka ahaana isagoon isdhibin ayaa waxa uu ugu jawaabay, boqorow adigii ogaayo labadeennu mar walba waynu israaci jirnay. maalinta haddaynu israaci lahayn oo aynu kaynta wada geli lahaynna labadeennaba waa layna wada qaban lahaa. marka layna baadho ee adiga in lagaa helo anigana layga waayo, ogow anigaa lay barayn lahaaye. markaa xabsigii aan galayna aniguu dantayda ahaa. intaa kadib boqorkii waxa uu cafiyey wasiirkii, waxaana uu ku soo celiyey shaqadiisii si ay u wada shaqeeyaan mar labaad. halkaas ayay ku dhammaatay sheekadu. fadlan hadduu ka cajabiyo muuqaalku like saar, subscribe-tana ha ka ilaabin. intaas iyo goorteenu muuqaal dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.